kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idinkiinba meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan qodobada wararka Garmaal TV kooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah xeer ilaaliye ku-xigeenkii hore ee qaranka oo sharci darro ku tilmaamay warqadii ka soo baxday maxkamadda gobolka Banaadir. Sidoo kale qodobada warkaan idinku hayno waxaa ka mid ah labada musharax madaxweyne ee kuraasta ugu badan ka helay doorashadii ka dhacday Jowhar oo la ogaaday. Imaaraadka iyo Itoobiya oo fadhi ka yeeshay dekedda Berbera oo ay saami ku wada leeyihiin. Sidoo kale warka waxaan idinku soo gudbin doonaa Kenya oo wiil Soomaali ah u gacan gelisay dowladda UK. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan wararka Garmaal TV ee ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan. Aanu ku bilownay xeer ilaaliye ku-xigeenkii hore ee qaranka ayaa sharci darro ku tilmaamay warqadii ka soo baxday maxkamadda gobolka Banaadir. Ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya Garyaqaan Dr. Mukhtaar Nuur Abuukar ayaa sharci darro ku tilmaamay warqadii ay maxkamadda gobolka Banaadir dhawaan ku hakisay bixinta lacagta Imaaraadka Carabta ay dowladda federaalka Soomaaliya ay ka xayirtay. Warqadda ka soo baxday maxkamadda gobolka Banaadir 30kii bishii hore isla markaana lagu soo aadiyay safarka Rooble uu ku tagay dalka Imaaraadka Carabta ayaa waxaa lagu faray gudoomiyaha bangiga dhexe iyo wasiirka maaliyadda in lacagtaas aan laga bixin qasnada dowladda. Garyaqaan Dr. Mukhtaar Nuur Abuukar waxa uu sheegay in ugu horreyntii ay ahayd qalad in la qabto lacagta u socotay safaaradda Imaaraadka ee Soomaaliya, taasi oo jebinaysa sida uu tilmaamay xeerarka caalamiga ah. Marnaba qaanuunka ma cadeynayo in safaarad hanti ay leedahay ama boorsooyin ay leedahay la baaro oo la xanibo. Waddan kasta oo caalamka ka jira qaanuunkaas ayay ku dhaqmaan. Wayba dhacday hadda waxaa go'aan ka gaaray golaha wasiirada oo in dib loogu celsho lacagta dowladda Imaaraadka Carabta ayuu yiri. Waxaa la isweydiinayaa halkee xeer ilaalinta ka soo gashay arrintan. Madaxweynaha ayaa u dacwooday. Ma ahayd inay gasho xeer ilaalinta oo dacwad maamul haddii ay jirto waxay ahayd in maxkamadda sare loo dacwoodo ayuu yiri. Sidoo kale waxa uu soo dhaweeyay in ra'iisul wasaare Rooble iyo golihiisa wasiirada ay raaligelin ay ka bixiyeen qaladkii lagula kacay dowladda Imaaraadka Carabta isla markaana uu ku dhiiraday inuu u ballan qaado in lacagtooda dib loogu celinayo. Dacwado badan ayaa la gudbiyay ciidankii loo qaaday Eritrea oo aan ilaa hadda la ogeyn halka ay ku dambeeyeen. Runtii waxaan leeyahay in arrintaasi ay xal u imaan doonaan iyo in meesha laga saari doono hay-adaha la isku adeegsanaya ayuu tilmaamay. Hadalkan ayaa waxa uu imaanaya kadib markii maxkamadda gobolka Banaadir ay 30kii bishii aynu soo dhaafnay shaaca ka qaaday in lacagtaas ay leedahay dowladda isudagga Imaaraadka Carabta inay si sharci darro ah ku soo gashay dalka isla markaana ay weli hortaalo xafiiska xeer ilaaliyaha qaranka. Amarka maxkamadda gobolka Banaadir waxa uu ku soo aaday xilli xasaasi ah isla markaana ra'iisul wasaare Rooble uu aaday dalka isudagga Imaaraadka Carabta kadib casuumaad rasmi ah oo ka helay mas'uuliyiinta dalkaasi isagoo maalmihii ugu dambeeyayna la kulmayay madaxda dalkaasi. Horey madaxweynaha muddo-xiliedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu soo saaray wareegto ka dhan ah tallaabada ra'iisul wasaare Rooble uu ku sheegay in uu ku raaligelinayo dowladda isudagga Imaaraadka Carabta sidoo kalena uu ballan qaaday in dib lacagtooda loogu celinayo. Wuxuuna amar ku bixiyay in lacagtaasi aan laga saari karin bangiga dhexe isagoo sheegay in go'aanka Rooble uu yahay mid uu gaaray hal shaqsi, sidaas daraadeedna aan lagu bixin karin lacagtaasi oo la qabtay bishii Abriil sanadii 2018. Dhanka kale labada musharax madaxweyne ee kuraasta ugu badan ka heshay doorashada ka dhacday Jowhar ayaa la ogaaday. Kuraasta lagu doortay Jowhar ee Hirshabelle waxaa ka mid ah kursiga caanka ah ee Hob 97 kaasi oo tan iyo shirki carta ay ku fadhisay wasiirka gargaarka dowladda Soomaaliya Khadiija Diiriye. Dadka waxa ay si weyn isku weydiinayaan kuraasta ka soo baxday Jowhar iyo musharaxiinta laga yaabo inay codka ay siiyaan. Kursigaas Khadiija Diiriye ee ku soo baxday waa kursiga qura ee si rasmi ah loo ogyahay halka uu geyn doono codka. Khadiija Maxamed Diiriye waxa ay kal hore ay sheegtay in codkeeda ay siin doonto madaxweyne Farmaajo haddii ay mar kale ay soo hesho kursiga.
hogaamiyaha Hirshabelle Cali Guudlaabe Xuseen iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabelle Mahad Xasan Cusmaan ayaa kaalin ku lahaa in Khadija Diiriye ay mar kale ku soo laabato kursigeeda, halka kooxda farmaajona ay caawinaad ay la garab taagnaayeen. Musharax madaxweyne Cabdiqaadir Cusable Cali ayaa isna sidoo kale miisaan ku lahaa doorashadii ka dhacday Jowhar. Kursiga Hob Eber shan waxaa ku soo baxay Maxamed Cumar Ceymoy oo ah wasiirka beeraha ee Hirshabelle. Ceymoy isaga ayaa horay ugu fadhiyay kursigan, wuxuu ku jiray siyaasiyiintii iyagoo heer federaal ah go'aansaday inay wasiiro ka noqdaan maamul goboleedyada. Ninkan siyaasad ahaan waxaa loo yaqaanaa Cabdiqaadir Cusable, wuxuuna ku jiray codadkii uu Cusable ka helay magaalada Jowhar. Kursiga Hob 88 waxaa ku soo baxday Dahabo Suusow oo horay ugu fadhiisay kursigan. Loolan culus kama dhicin kursigan. Dahabo waxaa la xaqiijiyay inuu taageeray musharax madaxweyne Cabdiqaadir Cusable. Labadaas cod ee Ceymoy iyo Dahabo waxaa loo xiray musharax madaxweyne Cabdiqaadir Cusable, waxaana la inkiri karin in uu ku taageeray madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaabe. In Cusable laba cod uu ka soo helay magaalada Jowhar waxay Cali Guudlaabe ay ka yareynaysaa culeyska beeleed ee ka imaan lahaa sida uu kuraasta u maareeyay. Kursiga Hob 52 waxa uu ka mid ahaa kuraastii lagu doortay Jowhar, waxaa mar kale ku soo laabtay Farxiye Maxamuud. Hogaamiyaha Hirshabelle Cali Guudlaabe ayaana sameeyay oo saameyn ku lahaa kursigan, laakiin kooxda madaxweyne Farmaajo ayaa la xaqiijiyay in Farxiye Dhaqane ay taageereen. Dhanka kale, Imaaraadka iyo Itoobiya ayaa fadhi ka yeeshay dekedda Berbera oo ay saami ku wada leeyihiin. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo booqasho ku tagay dhowaan dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa lagu soo waramayaa in dowladda waddankaasi uu kala hadlay arrinta dekedda Berbera. Abiy Ahmed ayaa kulan gaar ah la yeeshay amiirka dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, wuxuuna Abiy Ahmed uu amiirka kala hadlay arrimo ay ka mid yihiin iskaashiga dekedda Berbera oo ay saamiga ugu badan ay ku leeyihiin, sida ay uga faa'iideysan lahaayeen maadaama Itoobiya aysan lahayn wax dekada islamarkaana dhaqaalaheeda uu si weyn u saameeyay dagaalka waqooyiga dalkaasi ka socda, sida ay qoreen qaar ka mid ah warbaahinta dalkaasi Imaaraadka Carabta. Dhanka kale, Kenya ayaa wiil Soomaali ah u gacan gelisay dowladda UK. Wiil Soomaali British ah oo lagu magacaabo Maxamuud Siyaad Cabdixakiin ayaa laga qabtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyadoo loo gacan geliyay dowladda UK. Maxamuud Siyaad oo ah wiil asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya oo da'diisu lagu sheegay 24 sano ayaa loo haystaa dilka Alex Smith oo ahaa wiil 16 sano jir ahaa. Alex Smith ayaa la sheegay in raggan oo ku hubeysan tuuray ay ku dileen waqooyiga magaalada London 12 bishii Agoosto sanadii 2019. Booliska Kenya oo helay xogo sirdoon ah ayaa labadaas wiil axadii la soo dhaafay ka soo qabtay xaafadda Kilimani oo ka tirsan Nairobi, waxaana loo gacan geliyay dowladda Ingiriiska oo aad u doondoonaysay. Sida uu baahiyay wargeyska The Star ee ka soo baxa Kenya, booliska UK waxa ay weli baadagoobayaan rag kale oo labada nin kula eedeysan dilka wiilkaas yar. Guud ahaan daawadayaal waxaa intaas ku soo gabagabaynayaa wararkii aad kala socoteen Garmaal TV. Tan iyo kulanti dambe waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.